يو السلام عليكم صاحبي يا ولالهي معان قالي دمانتين واني سلام كدib xalaqadiina labaad hor u sii wadanayna inaygeena ubax jecelka laakiin waxa soo oran wax wada la yaab dadka badan ay waxaan soo dejinaa xalaqada uma maleeyaan soo taasna waxa sabab qaladka aniga galay isoo daahitaanka marba aan sameeyo soo taasna waan dhiga galinaya saaxiibiyaal laakiin xalaqada hadda waan soo dejiyay marka سفح وضوضة بدك الصاحب الكومنتين والأخرية رنتي قص على دعمات مكان أخرية قف سوق رحوا سديتن بقول كيو لبعضن بقول كيلو هيستوري إنمي أنت وقص لكن صاحب الإنمي رومانسي واي بيشن كان كبدي سو روم واي قف نوع سوق رحوا إن إنمي رحوا رومانسي واي سو بيشن كمسكينة يعني إنمي حماس هذا مهن لكن صاحب الألما أسألي كريه قصة أنت دارك وصاحب المسمع لي كرو لكن حوار وكذا لا إن شاء الله إن وصل يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقة النوبل xalqadeena hore waxaan ugu godarin tiro aaminada cidmada uu guri u qabto sida uu aaminsan tahay asigana uu aamin in gabdha ayadoo kala ay jiraan adduunkan ay ku sugan yihiin labadoodan markii goobta tareenka isku wada dhaceen waxay balan ku wada qaadeen in mar kale wada kulmi karaan markaasna keeg ay wada cuni doonaan subaxina markii la gaarin tiro soo dhaqsada soo daaqada fiirinaya iskuulka kikiyo fiirinayo waxba arkaba oo markaas wuxuu arkay waguri labadooda aragtidaas naxtinay ka qaateen waxayna cajiib ku noqotay labadooda iskuul la kala nicib yahay inay kala dhigtaan xalqadeena hore maasan uu eekad markaas kadib soo hay wuxuu dhibsado rintir u sheegay in iskuulka kikiyo gabdhaas oo meel walba ka mir laayahay tariinka jidka meel walba ka soo baxay subax soo dhaqsana xataa waaba nicbiin way ku raayaan asigna soo hay wuxuu sheegay in aragtidaas isaas u fiirinayaan oo ku dhibsaday saakoy ayaton inta imaadan saakoon wuxuu leeyahay arrinkaas inuu normal yahay caadi yahay iskuulka kikiyo ilaa heer dawladeed ay nicbiin iskuulka ajlo yaqaan jiduri waa nicibka gabdhaas u qabaan sidoo kale macallimiinta taa u qabaan iskuulka kikiyo nicibka u qabaan iskuulkaas wiilasha masaakiinta nicib yar ma ahan rintorona soo arrinkaas oo sidoo kale og yahay inuu wagurina xagga ay dhigatay aad u walwalayo wuxuu leeyahay maxaa sameeyaa maxaa arrinka toogay imaaday wagurina maba isdheeyeen in iskuulka kikiyo ay dhigato asxaabteeda daa u sheegana aad u naxayaan baab inacayaanba maxaa sameeyaa rintro ma garanayo wuxuu sameey lahaay xiisadan markay dhamaatana soo hay rintro wuxuu ka dalbanayay in afartoo wada raacaan xaflad wada dhigtaan laakiin rintro maadaama waxba oona haynin wuxuu ka dalbaday inuu ogolaado rintro wuu ka ogolaaha laakiin ayagoo bixi rabaan iskuulka banaankiisa waxay arkayaan dhalinyarada dhammaantood ilmahaas ku shumuusan yihiin leeyihiin gabdhan intii sugaysaa qof ay meesha u taagan tahay waana gabar kikiyo dhigto maxay maahan ka qabanaya waa yaab rintro markuu soo u fiirsho wuxuu u cadaatay oo inay tahay waguri asayba sugaysa ka waran rintro wuxuu taagan yahay aniga meeba isugaysaabo macquul ma ahan ma aniga ma isugaysaa may ama sabab la'aan kale ma iska taagan tahay wiilish jidrin dhamaantood waxay leeyihiin yarka sugayso yarkay waayo oo saanan u nasiib badan soo hayna intuu sicili waayo gabadh inta ku qoyliyo wuxuu leeyahay adoo iskuulka kikiyo dhigto maxamaha ka qabanay marna gafura noo taagaysi marna iskuulkeena iridu soo istaagaysi miya inta ku jeedo maahan ka tag laakiin rintro waa ka celiyaa wuxuuna dhahaa gabadhan raali gali inta ku jeedo soo hayna wuxuu leeyahay yarkay sugaysa nasiib badan yarkaas anigu dhaxdeena ma ku jiraan macquul ma ahane rintro uu ogyahay qofka sugaysa inuu asiga yahay markaas laba gabdhood meesha soo galayaan ay wagurina meesha ka wadayaan waxayna leeyihiin saaxiibada subur dimaan joogleen maanta waguri balaayaa meesha ka dhici lahay cawaantan ka soo tag si qaab daran wali ku yeeqsanayna wali u fiirinooyin rintron intuu jidka marayna marna uu faraxsan yahay marna uu murugoonayo wuxuuna ku faraxsan yahay in maadaama asiga daraadiis irida ugu maatay ee sugaysay dadka kale wuxuu ugu murugoonayaa dhibaatada u geystay ee sidoo kale oo kala dhigtaan laba iskuul ee aad isku nicib yihiin laakiin wiilasha saaxiibkiisa dhammaantood way fahansan yihiin markuu rintron madaxiisa wax ka dhex guuxaya saako wuxuu leeyahay hadda rintron waa maskaxda wax ka dhex guuxaya waa nala wadaagi kartaa anaga asxaabtaada dhahna waxba naga qarsan hadda wax niyadaada ku jirto anal wadaagi kartina la wadaag rintron asigoo inuu ogyahay inuu arkaan uu sheegi karin oo qarsanayo wali cabsina ugu jirto inuu sheego wuxuu leeyahay waxba ma jiraan wax yar le madaxa laga haaya oo kaliya xaafada iska aada asigana xaafadu iska aada saqdhax wuxuuna arkaa in xaafadooda wali keega oo furan yahay markuuna tago wuxuu arkaa oo wagir inay sugaysaba asiga inteena usoo ordo waxay ku leedahay igaraal noq waxa kugu sameeyay qaabka xuna kaaga taga sidoo kale asxaabtiisa sida ku galeen saaxiibkaagan sidaasna ugu dhaqmo ma ahayn laakiin rintro wuxuu leeyahay waxa soo dhan caadi waaye markaas kadib hooyadeeda keed oo keenayso waxayna ka dalbeen maanta inay firiid ku cunto laakiin sawagir wadiiday waxay leedahay baahi ima hayso laakiin sawagir caloosheeda qayaanaysa markaasna labadooda dhamaantood way ku wada qoslayeen keegan way cunay rintro markaas boonti u miisnad weydiinay wuxuu leeyahay iskuulkeen maxaa saaka u maatay aydan waxay leedahay yaa kala u maaday adiga la ku maaday inuu ku arko markaasna oo rintro aad uu farxay wajigiisa dhan uu guduudana asagana sidoo kale wuxuu la wadaagay in aragtideeda uu arkino aad uu farxay aydan wajigeeda kabo eekaana miins xisho daraadeeda macnaha labadooda xishooda la fadhiilayeen maha laakiin rintro wuu dadaga wuxuu u sheegay inuu ka filinayo in mardaba inay aragtay ay barabinba ee mardaba la kulmi doonin maadaama ay aragtay in iskuulka jidri oo dhigto aydan ay dhigtay iskuulka kikiyo wuxuu leeyahay taas wax cusub maahan aniga sidaas filinay runtii laakiin waguri oo على العكس gabdhaha dhan way ku duwantaa markay ku aragtay iskuulka jidri waxay ka filinaysaa in zaid isku baranayaan markaan aad isku dhaweeyeen xil walba ay kulmi karaan hadalkiisna soo asii ka filinay markay maqashay gabdha aad u niyajabto wayna naxday si dhaqsi hadalka u gaabsatay hal mar baxday rintron waaba qaracma asiga oo dhan wuxuuna dareemay gabadh inuu hadal dhaawacay inuu dhahay wuuna dhahay haa ayda markay aragtay in iskuulka jidri dhigto aad u farxday waxay ka filinaysaa mar walba inay wada kulmi karaan laakiin asiga wuxuu qaatay hadda kadib inuu jaakiri doonto asiga dhan fiiri doonin bas gabdhaha kale ay sameynayaan
maadaama ay dhigato iskuulka loo yaqaano Kikyo asigana waxaas oo dhan hooyadiis la wadaago barbaaxinta u galis wuxuu ku leedahay waxaas oo dhan hada gabadha ku sameeyay maraar galisid tan kale gabar ma kaligeed 5 saac la fasaxo habeenimo ina dhaweysid xataa ma garatid miya muhiimadii gabadhaas kaga xanaaqday ilaa hadda ma fahmin nacasnimadaada runtii hooyadiis waxay ku leedahay gabadha waxa ku sameeyay mar walba wixii dadka kale mar walba adiga kugu sameeyaan waxa ku qiimaysa aragtidaada iyo fikirkaaga ayadoo dhigata ku aragto iskuulka Kikyo adana hubsanin inay ku nici doonto niyadaada ka dhaadhacsi inaad sidaas ku arki doonto waana fikirka mar walba dadka adiga ku qaadaan adiga dadka markay wajiga fiiriyaan wuxuu ku malayaan qof xun adigoo walan ku baranay inay kula soconin sidaas dadka badan aragtidaas ku arkaan laakiin woguri sidaas kuma aragto adigana adoo hubsan woguri aragtidaas oo kala u arkay si dadka u fiiriyaan waxaan u fiirsay in maadaama iskuulkaas ay dhigato ay gabdhaas ka mid tahay hadii gabdhaas ka mid tahay micnaheedu miya sidaas oo kale inay ku dhaqmayso adina saas ma u arkay markaas kadib oo Renter wuxuu ogahay inuu qalad weyn ka galo feeron isku galinayo wuxuu leeyahay ana raali gelinayo subax iskuulka iridinta ugu hormar oo la kulmo wuxuu ku raali gelinayo xal wuxuu ku sameeyay ana xal waa dadga aragtidaas ku arkana aada ka raali gelinayo markaas woguri aad intuu xishootay fadhiisanay wogurina wuxuu la wadaagay inay xal dhan ay xanaaqin ba kaliya oo yaa waxaan dareemaheeda emotionkeeda qaar kamid ah ayna ka raali gelinayo ayadana laakiin Renter wuxuu ku leeyahay waxaan qaladkaaga inuu ahayn inuu qaladkayga uu yahay aniga ku arka aragtidaas waayo iskuulka Kikyo iyo iskuulka Jidri maba isgalaanba waana sababta wiilasha Jidri dhamaantood ay u neceb yihiin gabdhaha iskuulka Kikyo oo dhigto laakiin waxa ka daran gabdhaha asigana wuxuu la wadaagay saaxiibkiis wuxuu ayadu ku sameeyay aad ugu xumaaday sidoo kale wuxuu ka sii xumaaday in mar walba xiriirkeeda uu wanaajiyo oo dhibaato walba la kulmi karto waxaana macquul ah dhibaatada labada iskuul ka dhaxaysa in labadiina saameyn karto waa sida aniga u qaata aan kala cabsoonaa laakiin hadda ka bacdi sidaas ma ahan sidaas dhan kuma arki dooni waxba ay ma galin labada iskuul wax dhaxmaray ani mar walba waa ku xiriir doonaa markaan ku cileynay waa balan ka qaaday axdi ah oo wallahi wuu ka dhaweeyay Renter wogurina hadalkaas markay ka maqashay aad u farxday ayadana waxay balan ka qaaday in labadooda mar walba is xiriir doonaan labada iskuul hadii waxa isku dhacana dirabaani ani adiga xiriirkeena waa soconaa mana joogsanayo oo waaba laba kala daran ka waran maalinta xigta soo hay Renter jooga aad u adkaysanayeen waana labada ugu dameysan galaaska sidaas ay tahan waxayna rabaan in iska diiwaangeliyaan galaaska tartamada ka jira ayagana wuxuu ku fiican yahay oo kaliya ciyaaraha kiisa macalinka diiwaangeliyo u diiday wuxuuna leeyahay koowa inay taxaan ku baastiin adiga labadiina taxaanka mar walba ku dhacday waa inay ku baastiin marka hore hadaa ku baastiin waa balan wani diiwaangelinaa soo hayna aad u farxan wuxuu leeyahay cid kale kuma tashanayna qofka tashan oo ogtahay saako waa ku fakana markaan oo kale asaana badbaadiyay laakiin saako wuxuu leeyahay markaan garabni misiyana anaba teed iyo hastaba ayagana muddo 10 saac galaaska way ku jiraan waxba ma fahmooyinba markaas kadib Renter hooyadiisa soo wacay waxayna ka dalbayeen in maanta discount ay jirto keeka ugu guri oo soo wado laakiin asiga message uu qoraa wuxuuna dareemaa in muddo inay soo jawaabayeen aad isku yaqsana wuxuuna leeyahay in waqtigii meel la yacni asku luminona ayadana wax barasho ku jirto xiligan asiga markale message qoraa welina waa soo jawaab laadahay niidisna wuxuu ku leeyahay horta gabdhaha Kikyo mobile ma loo ogol yahay galaas ku isticmaalaan bas anu kale iskuulkeena maana yacni sidoo la ugu dhaqmo markaas kadib message-keeda uu soo jawaabay waxayna ku leedahay aniga ma kariin Renter aad u mashquulsanahay imtixaan waa leeyahay Renterna hadalkaas waxay ka dhigtay inuu aad isku xishoodo maadaama waxba uu nahiin asiga wax uu qabanaynin asiga iyo Sohayna waxay go'aan ku gaarayaan in library tagaan si fiican wax u bartaan laakiin sabmadooda wax uu galaayaa wuuna fahmi laayahay saakon wuxuu leeyahay rajo kale ma leeyin in marka la saako u laabano garabna siiyo waa askari la gelina asana na fahansiin karo waa qofka kaliya mar walba ku moodi jirnay markaas dib Sohay oo si taga asina Renter oo kaliya feesh fadhiyo wuxuu arkay laba gabdhood meel ay fadhiistaan la asina wuxuu dareemaa gabdhaha in meesha u baahan in fadhiistaan waana uu si taga ayagu u taga u cileena gabdhahan waxay dareemaa ayaga daladood in booska uu kacay waxay leeyihiin yarkan yar fiican waa runtii Renter laabiga gudihiisa wuxuu ku arkay woguri iyo gabar kale inay isla sugoyin wax ku baranooyin arinta xaqiiqeeba ahaydba inay u sheegtay in aad u mashquulsan tahay hal bil imtixaan oo dhan sugaayo Renterna arinkaas aad ugu farxay sidoo kale asaga niyad oo dareemo waayo wuxuu leeyahay adiga wax ma tarma tahayne wax ma fahmi kartid waxbarashadana aad ugu liidataa sidee woguri oo kale anigu u noqdaane aad iga fiican tahay wax walba sidoo kale Renter wuxuu ogaaday in woguri ay tahay gabdhaha kaalinaha ugu sareeya inay tahay mar walba galo ee waxbarashada aad ugu fiican tahay asagna aad isku yaqsado markuu nafsadiisa fiiriyo sidoo asaga yahay sida ayda tahay wuxuu dhahay aniguna waa inaad dadaalaa sida ayadoo kale waa inaan noqdaa markaasna hadalkaas soo dhahay hal mar Renter waa u maataba waxayna ku dhahay Renter maxamahan ka qabanayna asagna intuu naxay wuxuu dhahay woguri sida aniga u aragtay waxayna u sheegtay inayba marka hore ay aragtaba library xataa oo kasii baxay isha ay la sii raacday kadibna ay ka soo dab carartay ee rabtay in asiga la kulanto sidoo kale waxay ku leedahay maalmahan aad u mashquulsanaa sidaas awgeeda ku soo hadli waayay igaraal noqo asigana wuxuu leeyahay dhib malaha maadaama waxbarasho ku jirto caadi waay taa wogurina markaas balan ka qaaday inay marka dambe imaad doonto ay kaga badan gadan doonto maadaama lacag badan ma ay keysatay ay shaqaystay iyada laakiin asiga Renter hadalkaas cajiib u noqdo wuxuu dhahay gabar taajirada tahay sababta u shaqeynaysan maxay tahay oo wogurina aad u qasashay markii hadalkaas way la yaabtay waxay dhahay aniga gabar taajirad ma ihi sidaas awgeedna iskuulka Kikyo kuma soo galin aniga aqoontida ku soo gortay waan la doortay aabeeyagana mar walba wuxuu jeclaa in iskuulkan Kikyo soo galo mar walba waa dadaala asiga daraadiisa asana aad ugu dadaala mar walba waxaana balan ku qaaday in familkayga aad ugu farxiyo ana waxbarashadeeda ku dadaalo sidaas awgeed mar walba aabeeyga in farxiya jeclahay Renterna hadalkaas ma ka dhaaday xaaladiisa wasi siyaadaba asagna mar ka sii dambeys wuxuu rabaa inuu ayadoo kala noqdo wuxuuna ka dalbanaa inay wax walba fahansiiso wuxuuna u sheegay inuu yahay dadka waxbarashada fahanka aad u adag yahay sidoo kalena aad u xiiseynayeen laakiin wuxuu ka dalbanaa inay caawiso mana raba inaa sidoo hore camal ahaado woguri ma waxbarashada migu caawin kartaa mi fahansiin kartaa anigu waxaan rabaa marka imtixaankan agalay inaa ku baaso marka inaa ay fahansiisa ka rajeena ayada markaas way ka ogolaanay waxay dhadheed marka fursad helo waan ku caawinaa garabana ku siinaa ka
walwali markaasna oo gabadhi Subaru dhahayo oo saaxiibadeeda qaali ah oo wiilasha aad u necba u maata markaas waxay leedahay yarka waa ku diga gabadhan in ka fogaataa ka waroon mardama horteeda ku arkin wagri waxay leedahay sidaas dhigi Subaru laakiin ayadu way ka diiray Subaru kama yeelayso hadalkaas kama dhigeysanayso markaas gudaheena Sako iyo Ayata iyo Sohaya inta imaadan waxay ku leeyihiin rintro maxaa gabdhahan kikiyo ka qabanayna Sohayna wagri inta umaad waxay ku leeyahay gabadhan isku horteeda ka tii uu maaneysay Soomahan Subaru wiilashan sida bahalo kale ay u aragtaa wagriina hamar difaacay laakiin oo rintro ka hor difaacayo ayadina Subaru sida u difaac way la yaabay laakiin waxay leedahay inta wiilashan uu arkin waa meesha ina ka tagnaa wagri markaasna Sako inta xanaaqo wuxuu ku leeyahay adoo timaha sida ciro kale u eeg waxa aragtaa saaxiibkay si xun inuu dhaqanto Soomahan gabdhiina taajiriinta kikiyo dhigtay dhamaantiin kibirka niga batay dilaac iimayl yacniga ku socotay mar walba nigu dhibsadaba markaas rintro wuxuu leeyahay sidaas dhiin Sako ana wacay gabdhaha mid kamid ah ana qaladka iska leh ee anaaba ku dhibsaday intaana dhibsadna wajigaaga naga hor wareeji hadalkaas xunna ina gabadheeyay wiligeey kama filineen Sako hadalkaas oo kala ku hadlin Sohayna wuxuu leeyahay gabadhan waa gabadha iskuulkeena hortiisa imaatay laakiin rintro wuxuu leeyahay ana wiilasha dhamaantood ma isku keenay qaladkiisa ana iska leh markaasna Sohayna si dhaqsiyo wigul inta ugu tago wuxuu leeyahay iiral noqo qaladkaas maalintaas aan ka galay oo Subaru weela yaabay waxay leedahay wiilasha jidr dhigta ma sidaan waguriin sidoo kale weeraagelin laakiin Subaru ayadu way diiday in raageliso waana la yaabay waxay leedahay wagur maxaa wiilasha u raagelineen Sakoona arrinkaas oo arka wuxuu leeyahay gabdhaha kikiyo wiligood ma isbedelaan saanay u kibir badan yihiin wadan dhinacna mar walba wareerka ka jira koodhe ma aqaan si isku heshii doonaan sidoo kale rintro iyo waguriin sida isku fahmi laayeen way adag tahay kuwana ba soo dhaxgalaayaba laakiin waxa soo dhan waxa ku arki doona xalqadiina soo socota insha Allah xalqadiina taakay like subscribe hanaga iloobina saaxiib iyo ma santiin magaciisa Cabbaas Janak Cabbaas Simbay nabadgelyo saaxiibayaal